barxadda taalada daljirka daasoon degmada Boondheere ee Muqdisho ayaa waxaa isugu soo baxay madax dhaqameedyo haween dhalinyaro iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dibadbaxan ayaa lagu muujinayay sida looga xun yahay xariga loo geystay dhibane Xaashi Cumar Xasan oo muddo 10 sano ku xiran dalka Talyaaniga kadib markii lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka saxafiyiin u dhalatay dalkaasi dadkii isugu yimid halkaasi ayaa sheegay in Xaashi uu ku xiran yahay sifo aan sharci ahayn waxayna si wadajir ah uga dalbadeen dowladda Talyaaniga in si degdeg ah xorriyadiisa loo siiyo muwaadinkaasi Soomaaliyeed marka maanta waxa meeshaas kugu timaadeen inaad muujisiin inaad ka xuntihiin xariga afduubka Xaashi Cumar loo haysto soo saas ma ahan iyo aad ayaan uga xunnahay Xaashi dambi uu soo gelin inuu u xiraado in ka badan hadii alla ku reeyay ama ku dhow 20 sano inuu u xiran yahay dambi uu soo gelin aad ayaan uga xunnahay bahda saxaafadda anoo ku hadlaya afkooda waxay og tahay inaan Xaashi dambigaas uu wax luga ku lahayn gabadha wariyaha oo la dilana dilkeeda aan Xaashi uu luga ku lahayn waxay la tahay xaaladda amniga ayaan saamaxayn inaan dhahno kuwaas ayaa ka dambeeyay Xaashi wax luga kuma lahayn waxaan maleynaa Xaashi qofka ugu dambeeyo inta la xiriir arkayna ahay intaas ka raacnaa asiga dadka dhibanayaasha ee liiskooda la qaadayna kuma jirin Talyaaniga iskooda ugu soo dareen maalintii lagu xirayo Roma waxa la ogaa inaan buuq ka sameey karno aniga avocado waxaan loo diray Torino anagoo maqnaa la xiray anaga lafteena meesha waxyaabaha ku sameeyay la ogaa booliskii ilaalinaya cabsado in lafteena u baqayna in magaaladan 4 saac uga tag waxaan ku soo noqday Roma waxaan cuntada ka soo noo maleynaa 7 maalin wax kasto bini'aadan lagu qalci kara la isku day in la ku sameeyo adduunka meesha rabta aad waxa rabta ku siino keyskan faraha kala bax marka aan diidnay oo xamaraan ku dhaqanaayay waxa la yiraahdaa xamar laftiisa isugu dhaqato ku dilayna 20 sano aan jooga hadda waa noolahay wali meeshan deganaa la sheegay jidka maraa la sheegay waxa ku roon adduunka meesha rabta inaad tagto laakiin xamar isku tagin boqol qof oo noo joogta dadkaaga ku diri karnaa kuwa ka soo shaqeeya ku diri karnaa ma ku noolaan isticmaar meel ka fiican ku dhibanahay ma jirtaa waa imid waliina waa joogaa labana ma Xaashi ku marxaati ka cad labada mid maxkamad horteed yimid ma jiro nin waa kan hadda la sheegay in dambi inuu marxaatiga oo been ahay saacadii Kawsar Cabdiraxmaan Cilmi Cable TV Muqdisho.